xog hadda soo gaadhay ayaa sheegaysa inuu Mustafa Cagjar la shiray qaar ka mid ah waxgaradka qoyskiisa iyo mas'uuliyiin ka mid ah xukuumaddiisa oo ku hayba kuwaas oo uu sheegay inuu ka badbaaday shirqoolo dhowr ah oo uu aabihii u diyaariyay. wuxuu aad ugu faanay Mustafa Cagjar inuu ugu yaraan 5 jeer oo aabihii damcay inuu Axmed Shide ku bedelo oo madaxweynaha deegaanka ka dhigo inuu ka guuleystay oo meel iska saaray. wuxuu odayaashan iyo mas'uuliyiintan qoyskiisa ah Mustafa Cagjar ku yiri waxaan xog ku hayaa inuu aabihii markii hore doonayay inuu Cabdi Maxamed Cumar ku bedelo Axmed Shide oo madaxweynaha deegaanka uu ka dhigo, balse markii rabshadu dhacday kadib aan sidaas anigu ku imid oo xataa xilligaas aabihii uma qorshaysnayn buu yiri inaan anigu madaxweyne noqdo walow loo sheegay oo xogtayda loo gudbiyay. wuxuu Mustafa Cagjar ugu dhaartay odayaashiisa inuu aabihii Axmed markii horeba Axmed Shide u watay inuu ka dhigo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida, waxaase ka diiday buu yiri Lama Magarsa iyo Jawaar Maxamed oo dhanka Oromada aan ka wada soconay iyo Burhanu Naga iyo Gadho Andargaajo oo dhanka Axmarada aan ka wada soconay, isagoo Mustafa carabka ku adkeeyay inuu Burhanu Naga wax weyn ka qabtay inuu meesha yimaado. isagoo Mustafa hadalkiisa sii wataya wuxuu yiri wuxuu aabihii marar badan ii diyaariyay shirqoolo, waxaanse kaga badbaaday qaab dhismeedka aan Axmara ku leeyahay. wuxuu kaloo u sheegay odayaashiisa inay dalka Itoobiya maanta Axmara hogaamiso oo aabihii uu go'aan Axmara oo kaliya ku socdo kana leexan karin maadaama oo ay yihiin buu yiri hiilka kaliya ee aabihii maanta kursiga ku haya. sidaas darteed maadaama uusan aabihii Axmara ka maarmi karin oo si joogistiisu ku xidhan tahay hadba garabka uu Axmara ka haysto, waxay ka dhigan tahay buu yiri inaan aniga iyo aabihii isku meel hoos tagno, weliba aan anigu kaga furo dheerahay meesha aan wada hoos tagno. wuxuu Mustafa Cagjar aad ugu faanay inuu ku guuleystay inuu burburiyay dhammaan qorshayaashii iyo isku dayadii aabihii uu rabay inuu Axmed Shide ka dhigo madaxweynaha DDS. wuxuu aad u aflagaadeeyay Axmed Shide oo uu ku tilmaamay mid marjay ah, jilicsan oo Axmed Tara ah oo awaamirtii loo soo dhiibi jiray fulin waayay buu yiri isaga oo damacana ku jiro oo fulaynimana la meel marin waayay. ugu dambeynna waxaan ka ansaxsaday buu yiri Axmed Shide inuu cadeeyo inuusan booska madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida rabitaan kaga jirin, wuuna ii cadeeyay oo iyada oo muuqaal ah oo aan markhaati u sameeyay ayaan ka duubay, sidaas ayaana Axmed Shide geed isaga soo xidhay oo agtayda oo dambe qori kama jabin karo ayuu yidhi. ujeedka shirkan uu ina Cagjar cuqaasha u gaarka ah ee beeshiisa iyo dhowrka mas'uul ee ku haybta la yeeshay wuxuu ku soo afmeeray in aabihii hadda qorsheeyay dowladda cusub ee uu dhisi doono horaanta bisha Oktoobar inuu Mustafa Cagjar ku bedelo Aadan Farax, waxaana wata buu yiri aabihii iyo qaar mas'uuliyiinta Axmara ka mid ah, waxayna labada dhinac ku jeclaadeen buu yiri Aadan Farax go'aankiisa dhulka Canfarta oo aadan aaminsan yahay buu yiri in 3 qabale iyo 30 qabale doorashada laga reebay inay dhul Canfareed yihiin. isagoo isadkeynaya wuxuu ku goodiyay Mustafa Cagjar in marka la eego xaaladda dalku maanta ku jiro inuusan aabihii waxba ka qaadi karin oo cirku ku soo dumay cirsi aan Axmara ahaynna uusan haysanin, walow uu Mustafa ka yaraha calacalay inaysan waqti xaadirkan xiriir fiican lahayn isaga iyo aabihii iyo hogaamintii Axmara oo waxa igu diray buu yiri Aadan Farax iyo Axmed Shide. wuxuu odayaashan weysiiyay Mustafa Cagjar haddii xaalku sida aabihii raba noqdo in fursadda kaliya ee uu haysto tahay inuu ku dhawaaqo madax banaani wax walbana uu maanta haysto oo hub iyo ciidanba u dhameystiran yihiin, taageerana uu ka heli dunida Soomaalida kale iyo mucaaradka Itoobiya. odayaashii iyo mas'uuliyiintii isagoon wax hadal ah siinin oo ay wada yaaban yihiin ayuu soo fasaxay, waxayna isweydiinayeen intay jidka ku soo jireen wiilku miyuu waashay mise waa la maray.